ciidamada amniga dowladda federaalka Soomaaliya ayaa xiray qaar ka mid ah wadooyinka muhiimka u ah isu socodka gaadiidka dadweynaha ee gudaha magaalada Muqdisho. sababta ugu weyn ee ciidanka ay u xireen wadooyinkan waxa ay ku sheegeen inay tahay mid ay ku xaqiijinayaan amniga caasimadda maadaama laga cabsi qabo in falal ammaan darro ay gudaha magaalada ka dhacaan. goobaha muhiimka ah ee xilligan xiran waxaa ka mid ah isgoysyada Soobe, Banaadir, Saybiyaano iyo Kilometer 4 taasi oo ay sababtay in magaalada ay kala go'do. dadweynaha ayaa la arkaya iyaga oo lugaynaya waxaana wariyaasheenna ay soo arkeen haween gaaray xilliga dhalmada ama foosha kuwaas oo la gaarsiin waayay goobaha caafimaadka qaar. dhibaatada kale ee jirta waxay tahay in maalmo yar ay ka harsan tahay munaasabadda ciidulfidriga oo foodana ku soo hayso waxaana ay u muuqataa in shacabka magaalada Muqdisho aysan u dabaaldegi doonin farxadda munaasabadda ciidda Soonfur haddii ay xaaladda sidan sii ahaato. afhayeenka wasaaradda amniga xukuumadda Soomaaliya Cabdicasiis Xildhibaan oo ay la xiriirtay telefishinka caalamiga Universal ayaa u xaqiijiyay inay socon doonaan howlgallada ciidanka ay ka sameynayaan gudaha magaalada Muqdisho ilaa inta laga xaqiijinayo amniga gudahan caasimadda. iyadoo ay xiran yihiin wadooyinka magaalada Muqdisho ciidamadana ay howlgallada ay ka sameynayaan gudaha magaalada haddana caasimadda waxaa ka taagan dilalka joogtada ah ee loo geysanayo mas'uuliyiinta dowladda iyo dadka shacabka. عمر محمد صومنة Universal TV مقدشو.